kursiga hoob 86 waana ilaa hadda xal loo helin bal iga waran kursigaas iyo waayihiisa kursigaas horta kuraastu sideedaba kuraasta waxa iska leh beelo kursi haddaad maqasho hadda waxyaabaha ugu badnaa oo aan xal badan dhowr jeer xal ka galay wuxuu ahaa xildhibaan kursi ku fadhiyey oo jifidii beeshiisa nin kala siisay kadibna uu hadhowdii soo dacwoodo yiri kursigaygii baa layga qaaday kursi uu isagu meel kala yimid oo uu keensaday oo maaragtay uu meelaha ka soo qaatay ama soo iibsaday aanu uba arag inay tahay kursi beeshu leedahay ama jifidu leedahay kursiga kan marka kursi beeshu leedahay buu ahaa kuraastii habraaca ku khaldamay buu ahaa oo badnaa aan yarayn ilaa iyo kuraas badan oo bay ahaayeen qaarna hoos loo xalilay qaarna dee markii dambeeto aan sii daynay ilaa al'aana kursigaas beeshii baan hadda laga sugayaa inay iyadu qabsato oo ciday doonayso markaas habraaca qadam muxuu ahaa gudoomiye oo loo hakiyay habraacu system badan buu khaldama mar wuxuu u khaldamaa ergooyinka mar wuxuu u khaldamaa conflict meesha ka dhaca oo maaragtay meesha dagaallo iyo dhibaato ka dhacdo marka habraacu ilaa iyo 40 qodob buu ahaa oo maaragtay loogu talagalay in maaragtay lagu ilaaliyo maaragtay kuraasta inkastoo wax badan maaragtay ay jiraan oo turxaana oo indhaha laga qabsaday oo loo jeeday maadaama doorashadu raagtay inay socoto dood waxaa jirta ah inuusan kursigaas marin waddo ka xun ama ka liidato doorashooyinkii kale ee dhacay laakiin kursiga aanu ahayno doode shakhsiga qofka soo qaatay ama doontay oo ah la taliyihii amniga xilligaas ee madaxweyne farmaajo Fahad Yaasin in loo dan lahaa oo isaga la beegsanay ma jirta ayadaha doorashada lagu samaynayo bay ka mid ahay laakiin habraaca khaldamay oo kursiga ka khaldamay xaqiiqda marka loo hadlo waa habraaci ugu adkaa oo kursi doorashada soo maray oo ka dhacay haddaan hadda wax ka tilmaano dadku u qaadan maayaan laakiin ma rabno inaan hadda wax ka tilmaano laakiin habraac adag iyo xaalad adag oo markaa jirtay oo meesha ka jirtay oo aan fiicnayn buu kursiga ku soo baxay kadibna amar baan bixinay waxaan rajeynayaa mudane gudoomiye isaga iyo kursiga hoob 103 oo professor Jawaari uu ku fadhiyay inta aan doorashadu dhicin baa dhahdeen lama qaban karo waana la qabtay kii jawaari waad fasaxdeen markii dambe gorgortan iyo waxba inta ka gashayna adiga baxday oo baydhaba tagtayna fasaxday kan oo isla point ama isla wada ay ku soo baxeen waad hakiseen maxaa ka dhaxaragteen xilligii aanu kuraasta fasaxaynay kursigaas maxkamad buu aaday yiri kursi anaga 4 kursi bay ahaayeen qorshuhu wuxuu noogu jiray kuraasta inaanu dib u celino oo doorasho dib loogu qabto kursiga Jawaari waa tagnay meesha odayaashii waa aragnay horeyna odayaashii baa loo arkay waa ku qanacnay in maaragtay aanu sii dayno labada kursiga saddexaadna waxaanu ku qanacnay in maaragtay dib loo cesho oo maaragtay dib loo doorto maadaama ay gabar yar oo maaragtay da'dii ka yar oo maaragtay meesha soo gashay si gabar kaleeto qof kaleeto oo ka weyn loogu qabto ama qof kaleeto dib ay ugu soo qabtaan beesha inay dib celiso ama gabadhii soo siiso markii hore laga joojiyo ama qof kale soo siiso dabcan dib bay u qabteen waana soo siiyeen iyadii bay soo siiyeen kursiga kan xilliga aanu anaga kuraasta sii deynayno maxkamadda sare buu jiray maadaama maxkamadda jirayna anaga awood uma lahayn maaragtay inaanu sii dayno maxkamadda sare gacanta ku haysa kadibna sidaas uu uga haray ma sababta maxkamadda sare loogu dacwado darteed ayuu uga haray maya anagaan sii dayn ka anaga fiiri mar hadduu maxkamaddii u gudbay anagu awood uma lihin inaanu markaa ku dhawaaqo laakiin maxkamaddu inay ama siiso ama soo diido markaa kadib maaragtay waa laga hadli karaa